roob loogu diirsaday ayaa maanta ka da'ay deegaanka gobolka Sool. roobkan oo ha kuwa si talantaaliya uga da'ay deegaamooyinka kala gadisan ee gobolka uu ka kooban yahay intiisa badan ayaa si weyn dadku ay Ilaahay ugu mahadinayeen xilli ay ku jireen xaalad bini'aadam ku jiro tii ugu darnayd biyo la'aan iyo abaar baahsan oo ka haysatay dhibaatadii roob la'aanta ee la soo daristay. roobkan oo da'ay maanta gelinkii dambe ayaa iyagu si toos ah uga da'ay magaalada Laascaanood maanta gelinkii dambe iyadoo lagu arkayay magaalada dadka oo isugu soo baxay laamiga magaalada isla markaana tuman hareeraha wadada. inta badan dadka ayaa roobkan si isku wada mid ah ugu wada qubaysanayay iyadoo ay tanina ka marakacayso baahida bini'aadanku u qabo raxmadda Rabbi ee ay mar walba u baahan yihiin. waxa iyagana habeennimadii xalay ilaa iyo maalintii shalay si talantaaliya ay roobku uga da'ayeen deegaamooyinka dhinaca gobolka Buuhoodle iyadoo si isku mid ah ay roobabkani ay yihiin kuwa biyo dhig weyn leh isla markaana baaxadda biyeed ee roobkani uu yahay mid si weyn ay dadku ugu mahdiyeen. ilaa iyo haatan waxa socda raxmaadkii Rabbi oo si rasmi ah ay magaalada Laascaanood oo ugu yaraan iyadu aan sanad iyo badh wax rooba aan arag. ثاني واحد كم ركع عيسى ما في خفيف إلى علم مجلس وما داعي وما لف فرحة يقول لما كنا عيدت بسوق صباحين فقالها لامي جمال هذا الحين اللي مات لي الله أياكم محل رحمات في سوق داعي حلي عيدت بتشرين أبان أدوب بحسن وبيا الآن يولي بأي غيراني والله هي فترة الدنيا بأي كلية شيء يغني حسب فرح وفي غيران كا مجال هذا الله سبحانه